السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي ميرول بو أجوكتان waxaa nagala socotaan barteen YouTube-ka Cumar Janaal dhageystayaal si toos ah ayaa waxaa uu ku soo dhawaada barnaamijka xilka qaadista Khayre gudoomiye mursal oo shaaciyay in kalsoonidii lagala noqday ra'iisul wasaare Khayre Farmaajo oo aqbalay xilka qaadista tabin toos ah marka waxaan rabaa inaan niyu sharxo halkaan barteeda YouTube-ka fadlan haddii aad ku cusub tahay like saar si asxaabtaada cusub ay kula daawadaan maxaa iga xigo doono xilka qaadista Khayre maxaa xigi doono xilka qaadista Dr. Ibrahim Faarax Bulsaliid oo ka ah faaloodo arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa qabanaya in ay wax kasta ku xiran doonaan sida Xasan Cali Khayre uu ugu warceliyay arintani haddii uu aqbalo inuu sidaas ku taga una jihaysta wadadii kale ee uu mari lahaa waxaa laga yaabaa inay taasi fursad u siiso xukuumadda in ay sii wado gorgortankii ay ku jirtay balse haddii uu kasoo horjeestana waxaa noqon doontaa maadaama aan forogelin beesha caalamka ah in loo baahdo ayuu yiri Dr. Bulsaliid oo waraysi siiyay Cumar Janaal Dr. Bulsaliid ayaa intaasi ku daray in arrintani ay muddo ka hor leh gelin kartaa hagaag Dr. Bulsaliid ayaa intaasi ku daray in arrimaha ay muddo hor leh gelin karto kulankii lagu baalansanaa in lagu si isu yimaado uusan mareeb laba isbuuc gudahood si aan looga gaaro arrimaha doorashooyinka madaxweynaha ayaa sheegay inuu si degdeg ah uu soo magacaabi ra'iisul wasaare cusub وكان هكذا يجب أن يكون Yo, he's wrestling the guy butt naked, yo. Wrestling the cop. Look at him, bro. Oh, man. Yo, he flipped him. He just flipped him, bro. He just flipped the guy. xiriir hore oo aan wanaagsanayn oo guddoonka baarlamaanka kala dhexeeyay inuu qayb ka yahay waxaad moodaa safarkiisii ugu dambeeyay dooxa laftigeeda in isu soo dhaweyn badan lagu fashilmay marka waxaad moodaa dana badan oo isdiidan in la iskaga faa'iidaystay laakiin in baarlamaanka uu xukuumadda gacanta ugu jiray hal cabaara ma ahayn arrin sir ah ugu dambeyn xilli kala guura baa lagu jiray dhawaan baa laga soo noqday shirkii dhuusa mareeb oo loo arkayay inuu jaangoyn doono xaaladda siyaasadda Soomaaliya in hawl cusub soo korodhay oo xukuumaddii dhammayd imika leeyahay kalsoonidii baa laga noqday arrintaasi maxay ka saameyn kartaa xaaladii Socday wax badan waxay ku xiran yihiin sida ra'iisul wasaarihii hore oo arrinta u qaabilo haddii uu aqbalo in sidaas uu ku taganayo inuu asagu wadadii kale uu mari lahaa uu sii jihaysto xukuumaddan uu fursad u siiyo bal in gorgortankeedii ay sii wadan karto haddii uu ka
soo horjeestana waxay noqon doontaa maadaama aanay maxkamad dastuuriga jirin in faragelin beesha caalamka ay isu soo dhaweyn iyo gorgortan kale hooso soomaalinima dib loo maro laakiin si kastaba waxaad moodaa inay mugdi yar oo kale ku ridi doonto hanaankii socday ee loogu ballansanaa in 2 toddobaad gudahood dib la isugu soo noqdo si la isula fiiriyo guud ahaanba xaaladda dalka si gaarana doorashooyinka qaranka ee la filayo horraanta sanadka dambe. ra-iisul wasaare kheyre weli kama uusan hadlin xilka qaadista lagu sameeyey ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa weli ka hadlin xilka qaadista lagu sameeyey wuxuuna ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb markii xilka ay ka qaadayeen golaha shacabka wuxuu magaaladaasi ugu qayb galay kulankii wadatashiga madaxda dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah oo lagu soo gabagabeeyay Dhuusamareeb Khamiistii la soo dhaafay wararka qaar ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare kheyre uu maanta dib ugu laaban doono magaalada Muqdisho waa maalin mugdi ah xildhibaan Maxamed Abuukar Islow ayaa warkaas yiri mar soo horeysay xildhibaano ka tirsan golaha wasiirada oo joogay fadhiyada baarlamaanka ayaa diiday dooda kalsooni kala noqoshada xukuumadda iyadoo ku tilmaamaya go'aanka ridista xukuumadda mid ka mid ah guddoonka oo kaliya isla markaana aan sharci ahayn waa maalintii ummadda Soomaaliyeed mugdi u ah in guddoonka baarlamaanka uu si sharci darro ah u dhaqanmay waxaa laga rabaa in uu keeno caddayn ah in ay dood dhacday eedaynta loo soo jeediyey xukuumadda xildhibaanada ay koodeen waxaas oo dhan ma dhici waana nasiib darro ayuu yiri xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ah sidoo kale ah wasiirka amniga guddoonka halkan hoose ka daaw muuqaalka dhinaca kale mucaaradka ayaa isna waxa uu hadalkani ka dhiibtay fikirkiisa gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur muddo ka hor ayaa la damacsanaayahay uu leeyahay halkii bagiisa Facebook ayuu wuxuu kusoo damacay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku eedeeyay madaxtooyada iyo gudoomiyaha golaha shacabka in ay damacsan yihiin muddo kordhin waxay doonayaan in ay ansixiyaan qorshihii muddo kordhinta ee uu guddiga doorashada soo jeediyay kadibna xukuumadda eedda la saaro mooshin gacan taag ahna lagu rido ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur
waa hagaag farmaajo oo aqbalay xilka qaadista ra-iisul wasaare kheyre. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in uu aqbalay go'aanka golaha shacabka xilka qaadeen ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre kala fogaanshaha xukuumadda iyo hay'adaha sharci dejinta waa mid wiiqaysa horumarkii la sameeyay. Si taas loo daba qabtana waxaan go'aansaday inaan tixgeliyo codka golaha si taas loo daba qabtana waxaan go'aansaday in tixgeliyo codka golaha shacabka oo ah hay'adaha aasaaska u ah qarannimadeena. Madaxweyne Farmaajo ayaa warar qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in uu si degdeg ah u soo magacaabi doono ra-iisul wasaare soo dhisa xukuumadda dalka saarta marxaladan kala guurka ah. Madaxweynaha ayaa ugu mahad celiyay ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre howlkarnimadii uu muujiyay muddadii uu xilka hayay wanaagsan. Waxaan go'aansaday buu bartiisa Twitter kusoo yiri madaxweyne Farmaajo tixgeliyay codka golaha shacabka oo ah hay'adda aasaaska u ah qarannimadeena. Kusoo dhawaada tabinteena tooska xilka qaadista ra-iisul wasaare Kheyre.